ولا ليالو دكانكينا أنا ديساي أكورا ديساي أولا ديساي ديسا كلك ديسا ولا ليالو دكانكينا أنا ديساي أكورا ديساي أولا ديساي ديسا كلك ديسا والله دنتو ما قدها وامن والله دنتو ما قدها وامن ولا ليالو دكانكينا أنا سنة ديساي أكورا ديساي أولا ديساي ديسا كلك ديسا ولا ليالو دكانكينا أنا سنة ديساي أكورا ديساي أولا ديساي ديسا كلك ديسا أكون ديساي أولا ديساي ديسا كلك ديسا ولا ليالو دكانكينا أنا سنة ديساي أكون ديساي أولا ديسا كلك ديسا ودرار شقي وديد كسي ودرار شقي وديد كسي ورمركينا ديمان نولو دميسا يخسى أنكو كاني ديساي ودرار شقي وديد كسي ودرار شقي وديد كسي ورمركينا ديمان نولو دميسا يخسى أنكو كاني ديساي ولا ليالو دكانكينا أنا سنة ديساي أكون ديساي أولا ديسا كلك ديسا ولا ليالو دكانكينا أنا سنة ديساي أكون ديساي أولا ديسا كلك ديسا ولا ليالو دكانكينا أنا سنة ديساي أكون ديساي أولا ديسا كلك ديسا مين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما أنت وحنا أدوك فرح سنة هاي شلتر كان عصب لوجو أذيجيه dadka baahiyaha qaba ee dhibaatooyinka soo gaareen waxaan uga mahad celinayaa intii ka soo shaqeysay oo wasaaradda haweenku ugu mudan tahay iyo ciddii lacagta bixisay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa ka soo qayb galay wasaaradda ay ka tirsan tahay haweenka waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib maanta waxaa farxad weyn ii ah in aan dhagax dhigayno mashruuci u horeeyay oo ah shelter dumarka iyo caruurta ay leeyihiin iyagoo ay ku soo hiiran karaan dumarka dhibaataysan caruurta dhibaataysan oo si
ku meel gaara loogu qabanayo waxyaalaha ay u baahan yihiin kadibna markay ka baxaan kuwii kale u baahan lagu soo marxabaynayo waa mashruucii u horeeyay waa shelterkii u horeeyay Puntland halka waxaan ka dareemi karnaa dawladdeena mahadsan horumarka ay sameysay in maantay aan la tartameeno dawladaha kale adduunka ka tirsan si aan u daryeelno haweenka iyo caruurta dhibaataysan dawladana ay wax ugu qaban doonto madaxweyne waa ku mahadsantiin adiga iyo madaxweynahaba gudoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenkiisa gudoomiyaha degmada maxaa la yiraahaa qoladii kale oo naga taakulaysay mashruuca kan waxa bixinaya fundinkiisa ama lacagtiisa hay'adda UNFPA hay'addaas aad iyo aad runtii u garab qabata wasaaradda haweenka iyo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda cadaaladda inta socialka ka shaqeysa waxa halkan gacan weyn naga siiyay baxsan oo hadda sii haysa wasaaradda waxaan leeyahay UNFPA iyo ninka madaxda u ah Nikolai Botev oo runtii hal sano ka hor ayaan bilownay mashruucan inaan dhirino hal sano gudaheedna aan ku dhagax dhigno ilaahay yaa leh mahadda maantana way noo suurta gashay in maanta aan garowga ku bilowno waxayna yeelan doonaa meelo kale barbooska aan sameynay gaalkacyan laga sameeyay Buurtille Qardho Boosaaso ma sha Allah tan waa noo dhamaatay kuwa kale tan ilaahay ha noo sahlo tan mid khayr qaba Allah nooga dhigo waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha asha munaasabadan dhagax dhiga oo maanta la dhagax dhigayo guriga ama hoyga dumarka waaweyn iyo kuwa yaryar oo sidii wasiirkuba sheegaysay runtii muddo badan ba aan lagu qaadan raadintiisa sanad gudihii in la codsado iyadoo laga codsanayo hay'adda UNFPA oo runtii aan aad iyo aad ugu ammaanayo aqbalaadda ay aqbaleen iyo wada shaqaynta dhabta ah ee ay nala leeyihiin dawladda iyo shicibka reer Puntland waxaan runtii ku faraxsanahay inaan munaasabadan ka soo qayb galo waxaan rabaa inaan u sheego reer Puntland waa laga yaabaa inay tan war maxay ka dhisayaan 2 bilood aba dawladda ka hadlaya laakiin haddii annaga saacad inoo harsan tahay hal saacad inta waqtiga nooga harsan tahay horumarka dalka iyo nabadgelyada dalka intaba waa qabanaynaa waana samaynaynaa waxaana marxaati taaka ah gurigan quruxda badan ee loogu talagalay inuu hoy u noqdo dadka dhibaataysan ee dumarka ah ama ha waaweynaadeen ama ha yaryaraadeen wuxuu noqon doonaa mid reer Puntland ay ka faa'iideystaan waa mid markuu dhammaystirmana runtii noqonaya hoy ay leeyihiin iyagu oo dhax u ah ku soo hirtaan waxa la wixii baahiyaa ay leeyihiin ay la yimaadaan waxaan ilaahay ka rajaynayaa in uu si nabadgelyo inoogu dhamaado oo dhakhso ah waxaan runtii mar labaad iyo in badan ka badanba aan uga mahad celinayaa hay'adda UNFPA oo siyaabo fara badan ula shaqaysa dawladda iyo shicibka reer Puntland madaxeeda Nikolai iyo gabadha u joogta meesha baxsan oo aad iyo aad dad xilkas u ah madaxii hore ee meesha ay joogta baxsan bakhtiyaar isagana waxaan ilaahay ka rajaynayaa meeshii loo bedelay in uu isagana ilaahay ku nabadgeliyo innaga dhammaanteedna ilaahayna nabadgeliyo horumarku waa soconaya ilaa saacadaha ugu dambeeya insha Allah biidnillaahi tacaala guriga aad quruxdiisa aragtaan baa soo socda waxa weeyaan gacmaha aan isqabsanno ka wada shaqaynaa amniga iyo horumarka dalka ka uun baa waxtarin oo kulligeen aynu ku faa'iideynaa wabillahi tawfiiq aad iyo aad baan idin salaamaya